waxa laga hayay nin baa laga hayay bundad huudheed u furay ciro xaqiiqda taagan waxa weeyaan wasiiradiisu waa huudheed ma iyo ninka la yiraahdo khadar dhukur oo doonaya meel walba si duqsiga caana ku dhacay inuu ku dhaco oo meel walba gacanta inuu galiyo horta waa ayaan daro haddaba taasiyada maanta taagan marka hadii la leeyahay lacag la'aan baa jirto de sida kale u weydiista oo dawladdu ayna maanta waxba gacanta ku haynin oo baahi meel walba ay u marayso oo baahi meel walba faraha u gelinayso waxa tiraahdaan de waxna siiya dhaha labada waxa laga hayay nin baa laga hayay bundad huudheed u furay ciro xaqiiqda taagan waxa weeyaan wasiiradiisu waa huudheed maanta taagan waa huudheed marka runta laga hadlo waxbayaan been la isku sheegin taasi oo koow ka yahay markabkan uu furay ee bundada huudheedka koow waxaana waxaas oo dhan ka dambeeya leeyahay ay ka soo baxaysaa waa xafiiska madaxtooyada iyo ninka la yiraahdo khadar dhukur oo doonaya meel walba si duqsiga caana ku dhacay inuu ku dhaco oo meel walba gacanta inuu galiyo horta waa ayaan daro haddaba taasiyada maanta taagantay markabka halkaa ku xidhan ee loogu talagalay in ummadda muxuu ahaayey wax loogu qabto oo ay kaga maarmaan wixii dibadda ka yimid halkaa loogu sameyn lahaa saliidaas kow waxaa maanta ku shaqo beelaya 180 qof horta shaqaalaysiin la qorayay 30 baa ajaanib ah 150 kale waa reer Somaliland waa dhalinyarta maanta bilaa camalka magaalada ku fadhida oo shaqa ka helay shaqa abuur loo sameyn lahaa 180 qof kasta waxa dawladdu ku lahaan lahayd $5 oo u saaran oo cashuur ay ka qaadaan bahadeega 180 qof maanta halkaas horta shaqo ku waayeen 150 ay yihiin reer Somaliland waxay ku leedahay markabka dawladdu cashuur معاش العقل كقاطو يوح صوصار كل العقل كقاطو والنيمان كهذا بكو حساب تمية أي أورجادين يان إنان تذكي هرمر قارين تقاله دي العرياميو تانو وحنا عارفينها تقال العريامي ما هي بيل إلا أتاك سنيو بيل إلا أتاك سنيو وحنا شيء يا دولة الكورن وكرودين كي عبد الرحمن عرو هديا ونا أرنتا ونسوف فرجلي واحد بدن يعقى عواقب حماية كده عدونتو وديجانكم ما أنت كوحن نبيه هي أنت إلا صبلها أي تذكر مركب كارلو عنصريين أي كتريان هذا الشيء جيا قطب كلابات أنت دقيو حتى بعد يوحن من تانو شيء جيا يلا حكي ورشد يروح كل حتى على دي بيوال أورك أي وطن أي هطلع عنصريين يا مركب حقيقة إنه كهذا الله إن أنا يهرجلين ورشدن مركب كسليد السدابة تاسينا وواحد لقى صور شقي وواحد لكن لسه من دونه waxaan ku soo gabagabeynaa guntiga gabagabada leeyahay oon u sheegaya dawladda uu ka yahay garwadeenka Cabdiraxmaan Ciro ee bundada huudheedka maanta la furay aan waxba ahayn uu ku ka yahay ninka wasiirka maaliyadda sheeganaya aan mandate-kii wasiirnimo loogu talagalay aan ku shaqeynayo agaasimo u talinayo waxaan leeyahay haddaad ka waantoobi weydaan markabkaana aad ka qaadi weydaan faraha xaq looguma laha dastuurka oo dastuurka siiyay in cashuur raaf u helo lacagtana hadii la leeyahay lacag la'aan baa jirto de sida kale u weydiista oo dawladdu ayna maanta waxba gacanta ku haynin oo baahi meel walba ay u marayso oo baahi meel walba faraha u gelinayso waxa tiraahdaan de waxna siiya dhaha labada taas ay diin dhaanta laakiin halkaas ku xanibnaanaya ayaan dareedinta waxaad ka heshaan waad leedihiin waxaan u sheegayaa nagu soo noqonayaa dhalinyarta reer Somaliland anigoon kala qaadaynin waliba gaar ahaan inta khusaysan markabku in aqligooda iyo fikirkooda shaqeeyo haddii markabka maanta ku cadibane maalin walba lacagta laga qaadayo $15,000 in ka badan haddii ima weydo waxba ha naga siinin aan leenahay dhalinyarteedan waxaan leeyahay aqoonyahanka wax garadka ninkii caqliga u saaxiibkay wax garanaya in laga dhiidhiyo maanta wax soo saarka dalka la soo gelinayay ee lagu soo celinayay ee dhalinyarta looga faa'iideynayo ninka ka dhiidhi waayo isaga u taala dawladda dhigurana waxaan leeyahay dawladda nimanka soo dirtay meel iyo nimankaad hoos dhigtay nimankaad